أري إلا كل شيء وهذا قلت لي مسبح مويدا وسبيده بيده كده أنا على سيل هويدا كيالي سيل كي هويدا كشكنيو يسوع مال إلا كل شيء حاري وحار كده أرنا سيل كي هويدا نوع شكنيو تنوع شكني سمال مرح كده بالوا خاص بالبيدي باتي بالهرجيس صور عبل والله بالله الله اللي بعد اللوك لشرا والله هرجيس ما خنيسينتا ما ده لقولي حمر بضع قصة قادمات بر إلهي بانك هذا نع باقوله وصاتي حدات ماتو إلهه أودي أرساق ده اسمه كنوش لقوا ناقوس هرجيس لنتولى معه وفن كانت ليندنا أنت كنت بتشيني سنة كده هبار بعد قبطان كانوا يمر ميرا هذا كواله شوي الله عر أدولا إنك هذا كاريبو ورئيدن واحد مقالة تجوال كات كشو كي كاسو سارنا كي كاسو سار أنا الله ديران مقالة دي تجوال حتى ديك الله بتو سيرا إيجا شعبا كرسي والله وبلا الله يبانن نورك كسيدني بون كقولنا والله وبلا الله يعني أحد سؤال قال لي أنا عتم إصابت هذا نولي واحد اللي هو أركنا معاه أنت بدن واحد كلام معاه وعدد كهاد أصلا مقصين ودليرadaas oo qaar celebrity ay ku jiraan qaar ciidan ay ku jiraan qaar dhalinyaro oo mas'uuliyiin ay ku jiraan oo dheer Soomaaliland ah oo aan la soo wada garanaya oo maxaa la yiraahdaa codadkaas ay soo duubaan aniga taas oo hadlayaan idinku jeedeen marka nin dhalinyaro ah qof celebrity ah oo qof mas'uul ah markuu aniga codkaas ay soo duubo yaano dhalinyaro 20 jir wax iga dhici karto waa wixii 20 jir ka dhici jiray ama nin dhalinyaro ka dhici jiray asxaabay marka waxa waaye saa ula socda وين سلام أصحابي دمانتين ميل بأجوبتان صومالي وين ميل بأجوبتان وصاحبك شرم بوي صومال أنت لغة صومالك وهذا شو ميل بأجوبان دمانتو الله والسلام عليا أصحابي يورتو حالين شيء حالي لايف انستغرام وصوغلي لايف كاسنا ما أنا لايف كي محلي هذا أنا ريل لايف من لايف كي لبعض عن صوغلو markii labaad oo aan leef soo galno waxa waaye waa markii labaad oo aan leef soo galo hadana labada marba aan wax aniga ahaan i fiicnaan oo aan labada marba aniga ahaan i wanaagsaneen aniga ahaan aan wax fiican ahayd marka hadda codad badan waa jiraan oo codadkaas kale hadda aan maqasheen ama codadkan hadda aan maqli doontaan ahayn oo dhalinyaro badan wixii noo qorsan hadda cid og ma lahan waan soo aflagaadiyaa waan soo caaya anaga hadda iska heesno waxa waaye inta commentigaas caadi wanaag noogu soo qorto waxa ka badan inta anaga soo caayso waxay ka soo tageen commentiga YouTube ka soo tag TikTok ka soo tag waxaan la isticmaalo programme oo dhan application ka soo tag WhatsApp keena dhaxmareysa WhatsApp ki dhaxdiisa hadal caay oo aflagaada ah lagu soo duubaya waa lagu soo caynaa dad asxaab badan oo aad waxba ka hadlayna ku soo caynayso aad waxba u dhimin هذا أنا واحد جرتيس وأرجيس الدرا أنا دوت وصاق هذا عد أنا جالس تصان كرت استملان عد أنا مركز سمينا عن قوان كويد استملان وحواي نرجيس والصوماليات دور مر محلي هذا فنانين توصوماليات لأنه أصوات حسين أنا المال بو الصومالي دكتي أنا أويس واجب صار ما دام فنان صوماليين ولم أدحيا هاي أوكي فنان كسكواني مدحوين الصوماليات مئي محلي هذا الشيخ مصطفى إسماعيل هارون مئي ما مارتين أو دنيرها 20 جر 20 جر وحي كدعان oo iga dhacayaan aniga nin walba labaad fanaan marka xagga la dhigo in 20 jir wixii ka dhacay iga dhacayo waxa waa dhalinyaro badan oo aflagaadiis way jiraan aniga heesta Hargeysa markaan sameeyay laba habeen ay ku qaadatay hadahan murti maahan hadahan waxa waaye heesta waxaan ku dhex sheegay dhexdeeda hooyga fanki inay ay murti waa soo dhahan ay soo aflagaadiyaan laakiin ayadoo aan murti ahayn intaas u jeedin bilaa xigmada ah aniga laba habeen waqti ay ka qaadatay ayadoo siyaasad ah taay afaraha la galay Soomaaliya iyo Somaliland oo xoogaha siyaasad yariis oo iska xagga dawladda Jaafar Tiraq ayadoo jirta ogaay hatta wax walba oo iga iman karo calanka Somaliland aniga Muqdisho maxaa la yiraahdaa gacanteeda uga leh oo hees u qaaday waxa waaye wal iisoo gafay wal iisoo caayay badan dhalinyaro ah waxa waaye maxalliga muhiimadu ma aha Hargeysa in la imaado kaliya waxa bafanaaniin oo heesan fanaaniin too dhan Hargeysa fanaaniin Soomaaliyeed ana kamid ahay waan u heesan aniga Hargeysa okay hees hadeertay dhinacna fanika ahayd maxaa la yiraahdaa dhinacna amaanka ahayd oo wixii ay wahiyiin aan ku sheegay okay waxay ka soo tageen ayadoo taas ay sii jirto codad badan oo hadeertaan xitaa 500 ay gaarayaan dhalinyaro aniga soo aflagaadey oo codad badan ah ay jiraan
haddana saas oo ay tahay waxa waa ani waxay ila noqotay in Somaliland oo dhan ay soo wada aflagaadisay dhalinyarada oo dhan ay soo wada caysay Somaliland oo dhan ay soo aflagaadisay ila noqotay mideeda kale xalayto live Instagram ka soo galay xataa waxaan ku aflagaaday reer Puntland ayagana ku jireen labadooda wax maan reeban aflagaado ma aragtay kulli anu marada tiimare ahayd inay ga dhacdaan waa ogahay anaaba inta ku fadhiya hadda inta ku fadhiya tiimare ahayd oo madaxa ay saarneed ee awalba Soomaaliya ayada saartay madaxa ay saartay oo madaxa ay saarneed inay ga dhacdo waa ogahay sidii ciyaalkana waa hadle nin weyn meesha laga rabayna maxaa la yiraahdaa maan tagin oo maan sameeynin saasoo ay tahay wax qalad laga galo ilaaha weyn وعفسان لو يديستا إلهي نوا غفور رحيم وهدو عفس ويديستو ومر walba gacmihiisa u furan yihiin umadiisa marka hadda aan bini aadan aan qalafay galay oo aan u gafay bini aadankan waa kuwa aan ku dhashay aan ka dhaxdashay aniga Soomaaliya oo dhan waa isoo kaamid meel walba ay joogan waxaan idin sheegayaa wax walba aan aniga sameeyo shakhsi ahaanteyda ka sharma ahaan taageero waan leeyahay taageeraan laakiin maxaa la yiraahdaa waxay ugu taageeraan af iyo maxaa la yiraahdaa intii wax walba aan sameeyo oo sharmaan aan u sameeyo waa wax aniga karaankii aan ku sameeyay waa wax aniga fikradeed aan ku sameeyay waa wax hadaan rabo aan u dhafro waa wax hadaan rabo wax wiligeed xirmad ku fadhin laakiin wujuudi aan gali yani ka dhalinyaro ahaan inta wax qabad la'aan aniga la joogi lahaa dalka ama aan wax qaban hadaan wax barno waxbarashaanaysan taariibno ay furan tahay wax walba ay furan tahay wadada ay furan waxay ahayd inaan maxaa la yiraahdaa fankaas oo aan isku arkaan wixii taas inaan sameyn karo waxaan ay sameynayaan fanaaniinta waxaan sameyn karo inaan taan isku arkay horta live-ki labaad aan soo galay waa kii koorayna Facebook ka soo galay asigana dadan ku aflagaadeynay kan live-ki labaad oo iixigu ahaa wixii iga dhacayna Soomaaliya oo dhan way ogtahay dad badan inay ka wada gubanayaan waa ogahay waxaan ku hadlay aniga waan ka guban lahaa laakiin waxaan dalbanayaa oo aan weydiisanayaa oo mar labaad mar saddexaad mar afraad aan weydiisanayaa Soomaaliya meel walba ay joogto iyo Somaliland iyo maxaa la yiraahdaa Puntland inta aan u gafay waxa live kaas aan soo galay wixii iga dhacay oo ciyaalnimada hal iska ka afiya hadii macquul tahay raaligelin baan ka bixinayaa mideeda kaleeto waxaan rajeynayaa in dib dambe waxaan u dhaceenin mar dambena aysan dhaceen qalad noocaas oo kaleeto aniga qaladku waan galay nimayahow dhalinyaro ana waa ay 20 jir ah marka hore imaamada idinka ay ugu tuurteen hadana imaamadiin idinka la deegi karo kulli aniga ninka qaladka gala waa kana sharma boy ahaan aniga waaye inaan hor fadhiyo hadaan idin leeyahay qofna iguma dhiirigelin qofna maxaa la yiraahdaa qaladkaas maxaa la yiraahdaa garab iguma siin qofna kama dambeeynin oo saasama iguma dhihin aniga iyo maxaa la yiraahdaa dulqaadkii inta oo ka xanaaqay iyo intaas oo uurkayga wixii ku jiray iyo sidii aan ma aragtay aan u hadlay waxaan laakiin ogahay oo mar walbana aan ku soo celaa idin sheegaa waxa xalaq oo ku hadlo dhanay wada qalad ahaayeen hadal nin raga 20 jirde intuu geedka boodo talaka boodaa leeyahay maama hore Soomaaliya oo tirwaa aniga talanka boode meesh liiga filayna kamaana soo bixin waxaan codsanayaa Soomaaliya meel buu joogto khaasatan inta aan xalatooda u gafay dhamaantooda nimayahow in la cafiyo raaligelin ma dalbanaya fanka Soomaaliyeed iyo wixii fanaaniin ah iyo wixii fan sheegto dhamaantoodana ayagana raaligelinta xaqooda ku jirta maadaama fanki aan la sheeganayo fanaan aan la ahay ayagana waa raaligelinaya meel walba ay joogaan fanaaniinta Soomaaliyeed gafka xal iga dhacay waayo qabiilan ka hadlay qabiilna waa wax ugu xun maxaa la yiraahdaa qofka imaamada uga dhacdo aniga nin qabiil hore looga ogaamay nin qabiil ka hadal jira ma ihi nin qabiilkiisa ku soo dhax karo ma ihi Soomaaliyeed intaan ku soo leekaaday qabiil inta kuma soo leekaanin waxa idin leeyahay Soomaaliyeed meel ay joogtaan qaladkii haliga cafiyo qaladkiina waa qirtay waxa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cid aan wax u qabo ma jirto